habeen wanaagsan dhamaantiinba taariikhdu waa 22 November sanadka 2023 Afrikada barina saacadu waa 8 fiidnimo oo gow ah qodobadan caawa idin hayo waxa kamid ah dagaalkii lagu dhamaaday ee maanta deegaanka Buqdharkeen ka dhacay SSC waxay sheegeen inay maxaabiis qabsadeen tiknikana Soomaaliland laga qabtay ciidamada difaaca si Khartoum ayaa gacanta ku dhigay maxaabiis iyo gaadiid dagaal kuwaas oo aanu saxaafadda u soo bandhigi doono saacadaha soo socda Soomaaliland dhinaceeda waxay ku eedeysay colaadda ka socota Buqdharkeen garaadada magaalada Garowe jooga waa sidee hadalka u dhigtay laakiin saaka waa soo weerarka waxa bixiyay guddiga garaadada ilaa saacad ka tagay amarkiisa waxa bixiyay jooga Garowe Israa'iil iyo Hamas maxaabiis bay isdhaafsanayaan buurdhuubo inta badan biyaa liqay oo fatahaado xoogan ayaa ka taagan afmadow fatahaadii ayaa gaaray oo dooma ayay dadka ku kala gudbayaan baqaradii ganacsigana biyaa ku qulqulaya xaaladda gobolka Gadow way ka sii daraysaa qodobadaas iyo kuwa kale waad maqli doontaan aan ku bilaabay SSC Khartoum ciidamo ka socday ciidanka Soomaaliland ayaa maanta isku laayay tuulada Buqdharkeen oo ku taala gobolka Sool SSC waxay sheegeen soona bandhigeen inay maxaabiis ka qabteen sidoo kale tiknika ayay muujiyeen ciidanka SSC oo ay sheegeen in Soomaaliland laga qabtay weerarkii ka dhashay duulaankaas ayaa ilaa hadda soconaya ciidamada xaquudirka ee difaaca SSC Khartoum ayaa si geesinimo leh uga hortagay weerarkaas fulinimada isla markaana ku guuleystay inay dib ugu celiyaan goobihii ay ka soo duuleen ciidamada difaaca SSC Khartoum ayaa gacanta ku dhigay maxaabiis iyo gaadiid dagaal haddaba waxaan ugu baaqaynaa shacab weynaha iyo ciidamada SSC Khartoum inay u diyaar garoobaan difaaca deegaanka iyaga oo aan cidna wax duulaana ku ahayn maamulka SSC Khartoum wuxuu ogeysiinayaa dawladda federaalka Soomaaliyeed ee beesha caalamka inay diyaar u yihiin nabad kula noolaanshaha dariskooda isla markaana ay u hoggaansamayaan xeerarka caalamiga iyo go'aamada golaha ammaanka dhimashada dhinaca SSC waa 8 qof dhaawac kalena waa uu jiraa Soomaaliland kama aysan hadlin qasaaraha halkaasi ka soo gaaray balse wasiirka warfaafinta Soomaaliland ayaa colaadda Buqdharkeen ku eedeeyay garaadada dhaqanka SSC oo hadda Garowe jooga waa sidoo hadalka u dhigay weerarka waxa bixiyay guddiga garaadada ilaa saacad ka tagay amarkiisa waxa bixiyay jooga Garowe sababta uu bixiyayna waxa weeye buuqa iyo qeyrada Garowe ka taagay inay ku damiyaan bay doonayaan inay dadkoodii dagaal geliyaan waa xaqiiqa laakiin waxa la yaab leh haddaad dadkaagii dagaal u geliso in Garowe nabad hesho oo jaar iyo dad wax wada lahaydeen iyo ummadtoona aanad dhaafin runtii waxyaalaha taariikhiga ah ee dagaaladan iyo dhibaatooyinka inuu ka ay soo kordhiyeen dagaalkaa waxaa amray garaadada Garowe aanay ka soo amreen subaxii baana layna soo weeraray dagaal badan baana dhacay ujeedada ay weerarka u soo qaadayna waxay ahayd waqti in dhexdhexaadin badan laga wado dhibaatooyin Garowe ka taagan in dadka lagu jeediyo oo la yiraahdo waa layna soo galay ka kacayo inuu maayno kala dareeno baa dagaalka layna ugu soo qaado waxa soo dhibaataa loo geystay wahagaag Hamas iyo Israa'iil ayaa maxaabiis kala bedelanaya Hamas waxay sii daynaysaa 50 maxbuus oo ay Israa'iil hore uga qabatay taasi bedelkeedana Israa'iil waxay sii daynaysaa 150 Falastiiniyiin ah oo xabsigeeda ku jiray sidoo kale 5 maalmood oo xabad joojin ah ayay duqeynta joojin doontaa Israa'iil heshiiskan wuxuu ka dhacay Qatar dawladda Qatar ayaana ka odayeysay qamiista ayuuna dhaqan galayaa waana heshiiskii ugu horeeyay oo muddo bil iyo bar ah oo la islaynayay labada dhinacba dhaxmara wahagaag haatan fatahaadahan aadno aan ku bilaabo buurdhuubo oo gobolka Gadow ka tirsan inta badan magaaladaasi biyaa liqay xaalkeeduna waa sidan ila daawada antidii burburto mantay no banantay birmado ka carshoy shadeeni wey alanteen waata anis birsale ubararugo ka birmado ka carshoy
degmada Afmadow biyaa gale iyadana waa gobolka Jubbada Hoose dadku doomay ku kala gudbayaan xaalkeedana waa sidan هاي كم تشوفين هاي dhinaca kale isla Afmadow daadadku waxay galeen dukaamadii baqarada lagu beecmishtaro ciidanka Jubbaland ayaa badeecadaha guraya oo ganacsatada caawinaya وهجاج أن قبل كجذا كن نقضه مسؤولين تقبل كجذا أي شيء يا إن حالك وكسي دريو هدي حالك وصينا صي نقضنا قبل كاسي حالة دي سو عكران دونتو مصيبة الدعدي والسوء يمد كنتي حجمك إيو أرنت ماشى الدعدي أنه دولة الفدرال كأهين أو كنتي رجالان أو جامين هاي تيم كي جبلان أو من عندك حجين كي جبلان محمود سيدان أو جامين هاي maamulada degmooyinka oo ayagana runtii isu yimid degmada Ceelwa balad xaawo Ceelwa gudoomiyaheedii iyo rag kale ka socday Kijiko balad xaawana gudoomiyihii baa socday Cabdirashiid Carab doolowna hadda waa beeskii gudoomiye Lafay iyo ku-xigeenkiisa Aadan Madoobe runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa hawlaha ay qaban hayeen waxaa kaloo si qaas ugu mahadcelinaynaa laamaha amniga kuwa Jubbaland iyo kuwa gobolka sida wasiirka amniga taliyaha hay'adda NISA ee gobolka iyo taliyaha booliska gobolka iyo dhammaan xubnihii ciidamada qalabka sida oo ku sugan aagaas oo arrimaha amniga aad uga shaqeyn hayay aad iyo aad baan runtii ayagana ugu mahadcelinaynaa waxay qayb ka yihiin dhammaan dadkaas oo dhan safarka taariikhiga ah oo la isugu yimid degmada Doolow way qayb ka yihiin dhammaanteedna waxaan rajaynaynaa meeshaas inay ka soo baxaan waxqabadkii gobolka Gedo lagu wajihi lahaa hadday hay-ada tahay hadday Jubbaland tahay haddii ay dawladda federaalka tahay dhammaan waxaan rajaynaynaa kulankaas inuu noqdo kulan ay ka soo baxdo waxqabadkii fatahaadaha iyo dhibaatooyinka kale oo ka dambeeya intaba wax looga qaban lahaa وهجاج بينما waxaa gaaray gudoomiyaha baarlamaanka دقيقة ورك عاوي أنت سهينو جوجو وتكون ما سنتين داوشدينا تانية كلن ضمبة نبتقليو فايدوينك أديجي بس سند موني درست العجها withdraw money فبحد العجها
airtime top up ku shubashada xirmooyinka ku hadalka eBesa Pay lacag bixinta ama tukaamaysiga loans and savings amaahda iyo kaydka eBesa Global xawlaadaha eBesa Mastercard Ijwa Mastercard banking service adeegyada bangiga eBesa goor kasta iyo goob kasta macmiil weli hore ma u maqashay application-ka Banana Pay haddii aadan hore u maqal Banana Pay waa mobile money application kuu sahlaya inaad si fudud lacag uga dirtid adigoo isticmaalaya taleefankaaga gacanta oo ma baahnid inaad xafiis booqatid waxaana inoo keentay shirkadda Tawakkal Express oo muddo ku siman 30 sano ka shaqeynaysay nidaamka xawilaadda lacagaha haddaba halkee ayuu ka shaqeeyaa Banana Pay waxa uu ka shaqeeyaa dalka Mareykanka waxaana lacagta uga diri kartaa adduunka oo dhan Soomaaliya iyo Kenya waxaad lacagta ku diri kartaa adeegyada mobilka gacanta sida Sad Sahal EFC Plus iyo M-Pesa Kenya waxaa sidoo kale ku diri kartaa adeega T+ bangiga Sombank iyo xawaaladda Tawakkal Express haddaba ka faa'iideyso Banana Pay oo ku sameysay qiimo dhibis balaadan oo ah 20% waxaana lagu adeegayaa qiimo jaban